waxaan saxaafadda isugu yeernay qalqalgelin aan dareennay in muxuu ahay dalkii lagu sameeyey golaha isbedel doonka meesha ay ka rabaan muxuu ahay golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahay qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo kordhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka dagtay shalay arrimaha aan ka hadlayna ay ka mid yihiin haddii aan gudo galo sida aad la socotiin baada saxaafadda iyo dhammaan mas'uuliyiinta shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu dagay diyaarad sida wafuud sida la sheegay anigu wafdu waxaan u aqaanaa kii markii ugu horreysay protocol leh kii markii ugu horreysaba leh muxuu ahay amnigiisa uu sugan yahay dad doonaya suicide political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaaladii Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya sababtoo diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax haga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo modificationka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo diyaarado kale ku dhici karaan ayo hawadan aad arkaysiin saacadii waxaa marta muxuu ahay halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahay hawadeen secondki daqiiqadii saacadii marba tire intaas leeg ayaa marta marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahay amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahay kaawo ka qabin muxuu ahay amar ka haysanin adiga oo muxuu ahay dawladdii muxuu ahay dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan muxuu ahay laga hadlay oo leeyri diyaarad aan soo Muqdisho soo caga dhigan ma tagi kartid qatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadayba qatarta ay galeen iyo hawada dalka qatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas'uulnimo intaas ka weyn ma laha waayo diyaarad waa idin sheegay ku noqon maayo meeqa saacadii meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawadeena wada diyaarad aan raali laga ahayn hadii oo hawada laga xirto bas oo muxuu ahay saadaash laga dasado bas meeqa diyaaradood ku dhici kartaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dalkeena shalay badbaadiyay waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiis lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arintaas waxaan rabnaa dawladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dawladda iyo muxuu ahay golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee Jubbooyinka waa inay si degdeg ay war ku siisaa oo ayna waliba si faahfaahsan aan war uga helnaa waayo muxuu ahay qatar intaas ka weyn oo looga san kara malaha إن شاء الله شعبك جبوينك قاصة مقالة كسمايو مدبضنا يسفرايل صبركي وكرنا ماذا رنتي سيدا أنا قبل أصنع كرنا ماذا لكن وحان ليه إلهي رجيديس لغا مقوستو آدي باي إففالها رجيدو وفي عيهين عليسكي إيو يقميسيق الذين كوهايو الذين سو ترحيلاي deegaankii la rabo in la idinka barakaciyo insha Allah waa idinka soo gaarayna inaad gagsitiin oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiin oo ahaada mid Ilaahay agtiisa aad ku raali gareynaysiin aad oo ahaado waayo qofka Ilaahay raali gareey ayuu Ilaahayna raali gareeyaa marka shacabka Jubbooyinka inay sabraan oo ay waxyaabaha ay sameeynaayeen dadka qayr mas'uulnimada caadeysanaya oo sharci darrada caadeysanaya waxyaabaha ay sameeynaayeen inayna si caragelin ayaan ka codsanaynaa insha Allah xeer ilaalinta dalka dambiga ka dhacay dalkan dambiga ka dhacay diyaarad qayr sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeeni ku soo xad gudubtay
hawadeena inta ummado ah muxuu ahay ku safraya hawadeena khatar gelisay beesha caalamka ma aha Soomaali kaliya wax la qalqalgeliyay dhammaan beesha caalamka waa la qalqalgeliyay imisa mas'uul imisa diyaaradood oo rayida oo hawadeena ku safraysa dadka ay wado oo noocyo kala duwan oo muxuu ahay u baahan badbaado hawadeena haday wax ku noqdaan Soomaaliya hawadeeda ayaa ceeboobi lahayd marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arintaas inay ka soo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ayna geeyaan dadkii mas'uuliyadaas qaadan lahaa diyaaradaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toos ah ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa ay hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaa diyaarad muxuu ahay qaraab aheedo oo aan jadwalkii iyo caymiskii wax oo dhan laga saaray inay ahayd oo haddana ayba ka cilaadayaa laga yaabaa hadday kacdana waan arkaynaa laakiin feejignaan dheeraad ay dawladda Soomaaliya inta aan ognahay aniga aan kullee xildhibaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka sameysay arintaas iyada inayna khatar kale ayna gelin amisom dawladda federaalka waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxa lagu sacad loogu soo xadgudbay amnigii dawladda muxuu ahay dawladaha ciidamada nacaawiya ee amisom arintaas waa inay sacad ayagana ay tala bixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ileen hawada Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya isku sharci waa kala sharci ma bariga hadii aad shabaab la dagaalamayso diyaarad intaasoo qalqi ah oo hawadayna iyo muxuu ahay ku safraay diyaaradii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantahay anaga shabaab waa nooga darantahay marka amisom shaqadaas ayada waa inay qabsataa oo muxuu ahay dawladda kala shaqeysaa ilaa hawada ugu dambeyn mas'uuliyiinta muxuu ahay shalay diyaaradaas ku safray la yaqaan waxaan leeyahay idankana la fihiina qataraad geliseen dalkiina qiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharciga u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u dalkana aad muxuu ahay cadow idinka aad ku soo hogaamisiin oo wax yeelaynin ugu dambeyn xildhibaanada shalay tagay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisii qatarta aan sheegay ee hawadeena ee intaasoo shacab ah iyo intaasoo mas'uuliyiin ay ku safrayso shalay diyaarad koorlaay waxa la yiraahdaa hasha geel markii koorta lagu xiro dhawaqeeda la maqlay dhay tirada koorlaay waxa la yiraahdaa hasha aan koor lahayn oo aan hab yaraatee aan wax laga dhageysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hogaamiyay dalkan qalqiga ku safraaya hawadeena intaasoo mas'uuliyad darra xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha Allah arintaas iyada waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed intuu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahay kaligeed iska duulayso mas'uuliyad darrada ay leedahay ha ku xisaabiyo xildhibaankii oo asaga matalay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas'uuliyad darradaas inaan lagu noqonin مسؤولية دراسة إن لو قلنا قلنا إن لا إلى شرع دلك ودقن إن دل كان أنا عيب لو سوجدين واي وحلقود دورت دل كان إن عيبتي سأسترته إن دل كان المثلات لبوا قلنا قطه إن شعبك كنا المثلات قلنا قطه عيد يهوديس المثلات قلنا قطه ما أها إن الديارات كورلايا أو محوها هاي تهريب هودي سوق جلسوا أنت سو هودين ومضة أو كسفريس أتقرطر جلسة صح معها marka xillibaano xal qaadi reer Juqla wahesti ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha Allah sharafta xildhibaanimadana meel ugu dhicmaysiino insha Allah baarlamaanka markii la furano waa la idin la xisaabtamaya waan ladii ogyahay xataa handaad kaamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkay kaamarada ka dhuumanay markay diyaaradda ka dagaayeen hadii aad kaamarada ka dhuumataan xataa waa ladii ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay istiqaali dadkan sharaf ayuu leeyahay
dooni mayno sharaftayna iyo xorriyadayna iyo muxuu ahaa istiqaalada dalkayna in meel looga dhaco dooni mayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeen